weli waxaad daawanaysaan Djibouti TV markaana akhbaaraadka dibadda. Raila ayaa diiday natiijada doorashada ka dhacday dalkaasi Kenya. Raila Odinga oo daqiiqadii la soo dhaafay qabtay shir jaraa'id ayaa ku gacan seeray natiijadii shalay ka soo baxday guddiga doorashada Kenya. Waxa uu yiri tirada uu ku dhawaaqay Mr. Chebukati waxba kama jiraan, waxaana qasab ah in maxkamadda sharciga ay meesha ka saaraan. Raila oo hadalkiisa wata ayaa yiri malaayiin Kenyaan ah ayaa codsaday si ay hogaamiye cusub u doortaan, laakiin shalay dimuqraadiyadeena curdanka ah darbaaxyo weyn ayaa ku dhacday. Qodobka ayaa u dambeeyay guud ahaan warkii aad ka daawanayseen Djibouti TV.